walayaal horta waxaan hadda nii sheegayaa meeshaan u socon doono kolay waa isweydiinaysaa ninka muxuu koor noo sheegi waayey muxuu u qarinayaa meeshuu socon doono meeshaan u socon doono horta waxaa weeyaa meel aan waqti dheer ku riyooni jiray inaan aado 5 sano ka hor aan isku day inaan aado laakiin duruufta waqtigaas saamixi weyde hadda laakiin fursadii ii soo baxday suurtagal ii noqotay inaan aado ta kalena ka hor waxaan ii sheegi waayey waxaan ka cabsanayaa inay dee fursadani dhaafto ta kalena waxaan isdhahay markaa 100% hubtid oo doonta gashid oo ku kalsoonta inaad doonta ku jirtid markaasuun dee sheeg xaggaa u socotid meeshaan u socdona waa kolay dee ka horsaan ii sheegay waa meel aan aad waqti dheer ku riyoonayo aan rabay inaan aado meesha magaceedna waa Antarctica waa dhulka barafka oo markaa maxaa khariidada adduunka eegtid dhulka ugu hooseeya dhinaca koonfurta oo xaggan Argentina laga baxaa la siyaada sababta meesha waadiyaan waxa weeyaan maahun kaliya meel aan ku riyoonayo waa meel xitaa aan rabo haddaan nahay Soomaali inaan adduunka meel kasta ka dhacno uma jeedo sida qaxootinimo laakiin waxaan u jeedaa qofku hadduu riyo leeyahay oo meel ku riyoonayo inuu gaaro amba inuu wax qabsado inuu de riyadaas ku dadaalo siduu u xaqiijin lahaa kolay waa garanaysaa duruufta ummadda Soomaaliyeed ku nooshahay duruuf fudud maaha laakiin marmar dee waxaa fiican inaa laisku dayo sida meel kasii sarreeya ama meel ka fiican lasii gaari karo oo dadkeeni xitaa niyadooda iyo maxaa la dhahaa niyadooda iyo sharaftooda iyo xitaa kartidooda iyo waxyaabihii ku riyoonayeen loo sii kordhiyo maadaama dee 30 sano dagaal aan ku jirnay 30 sano ka badan xitaa dagaal aan ku jirnay waxaan u baahanahay fikiro cusub iyo xitaa riyoon cusub oo dadkeeni niyadda u sii dhisiiso oo jiilasha soo socda Soomaalida dhihi karaan xaggaasaan ka dhici karnaa xaggaasaan gaari karnaa waxaasaan qaban karnaa marka waa sababta ninkan waalan la hadlayo hadda oo aadayo Antarctica qof Soomaalina ka horna muu aadin laakiin meeshan maaha lagu faanayo qofka ugu horeeya Soomaaliya meesha aadaya inaan yahay laakiin waxa ka muhiimsan xitaa aniga maadaama qofka ugu horeeya aadaya meesha in dad kale xitaa iga sii dambeeyaan oo xitaa Soomaali meeshaas ka warkeenaan iyo xitaa inaan haddaan Soomaalinahay meelo kale muhiim ah xitaa aadno adduunkana xitaa inaan ka muuqano dadka meelaha wax soo saarka iyo meelaha dee cajiibka marka la aadayni Soomaali xitaa ku jirto marka waa sababtaan meeshaas Antarctica la dhaho aan u aadayo